hooyaday iyo aniga oo hal nin wada guursano halkii nin aan wada guursanay hooyaday horta alxamdulillah laba caruur oo Ilaahay ka siiya laba caruur ee u dhashay Ilaahay ka siiya anigana hal caruur maxay kala haayeen hooyaday laba wiil oo joogtay alxamdulillah ana gabar ay joogtay hooyada iyo adiga hal nin ay ka wada dhaleen hal nin aan ka wada dhalay way saddex cunug oo isku aaba oo gabar iyo hooyadeedna ay kala dhaleen والله horta ma diidayno wixii waqtiga noo keenay wax walba gadaal laga ogaaday wax walba arintii ay tahay dhibaatana ma lahan qisadii marka waxay noqotay waxa ogaano dib ah ka ogaanay oo dhacda waxay ahayd maalin baa waxa dhacday hooyo cunugeeda dambe markay foolanaysay inaan dhakhtarkii tago ninkii anay qabo hooyo qabayna uu yimaado haba yimaado ma xumo aanu imaashtaankii uu imaaday iyo arintii marka aanu tagay aan u sheegay waxa ahaanteedu inuu imaadaan mooday uu imaaday hooyo ku dhalaysan eri saas miyaha hayo waaya ani ahaanteedu waa ogaa inuu reer kale leeyahay laakiin ma ogeyn in hooyaday ahaanteeda tahay saas miyaa way u dhahay anna xaaski kale ayuu mulayso dhah wallahi ma sha Allah haya ku dhah waa joogna cabaarkii dib hooyo alxamdulillah wiilkeeda yar Ilaahay siiya way dhashay gudihii baan kala iga soo daba galay xaaji bay tiri sawa yaabo gadaala fiiriyay nin kale lama socdo hooyo maxaa ku dhacay eri maskaxda dhankeed wax ka noqdeen maya ugu tir hooyo xaajigayga waa kana adeerka waa kana amal iska baro iyo wuxuu yiri yaa hooyo ama adaa dhalay iyo ana dhalay aminkii baa meesha iska qabsasho imaata arintii baa dib loo baaray ahaan markii guur la dhaho hooyaday baa ninku hor guursaday laakiin gadaal iga qabay anna qof inta badan inta joogi jirta ma ayno safariya iska iska bixi jiray inta badan markaa joogi markaa ma ay joogayd marka ninkaan qadka Facebook iska barana waa sheekaysanay reerkii wiiga soo doonay aabo haba isii saasuu email geystay asii hooyana isma horkeenin wali oo meesha is arkin hooyana reerkeedii ay lahayd adeer inta u tago aawi waxa iyo barmidna ma dhihin waa la joogay arintii hooyo meeshanka ku umushay waa soo bixinay waa keenay xaafadeydii la keenay arintii dib ugu noqonay waa baarnay daan wuxuu dhahay inaad u dhashayna ma ogeyn koodaan wuxuu yiri in hooyada tahay ma ogeyn anigu waxaan ogaa ka soo sameeyo uma sameyn lahayn mid kale tuu dhahay ani hadda hooyada hadda aan qabo adna aan ogahayo dhahay inaan ku qabo ma midci lahayn u dhahay sababtoo ah sharciga islaamka ma qabo diintu ma ka baneen u dhahay runtii markay dib loo ogaaday wixii la baaray wax dhacay bay noqotay way socotay faa'iideyna ka soo bixinaa aragnay waan marka waxa ku gaarnay inuu hooyana furo anuu iska furo caruurtiina iska haysano iyo wax lagu hadlaayo kala ma laha